إنا لله وإنا إليه راجعون مرحومة نجح عبد عويل وهبينك حلي وضعتكو قاضي dooxa Hargeysa gaar ahaan agagaarka dugsiga Imaaraadka ee dhinaca New Hargeysa ayaa meydkeeda saaka leh sida ay telefishinka qaranka ay u xaqiijiyeen qaar kamid ah ehelada marxuumadaasi waxaanay ka warrameen qaabkii loo helay meydka marxuumadaasi iyo sidoo kale halkii laga helay iyaga oo ka warramay dhacdadaasi iyo sidii ay u dhacday waa kuwan qaar kamid ah ehelada marxuumada Najax Cabdi oo ka warbixinaya halkii laga helay meydkeeda inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun kullu nafsin dhaaqatul maut ilaahay marxuumada Najax Cabdi Cawiil hawn xariisto waa sida la socotaanba xalay bacda al-maghrib iyo cisho dhexdoodii bay ahayd xilliga dhacay in shilkanu goobtu sida la sheegay waxa ahayd bridge-kan ku yaala seeladii Imaaraadka u dhaxeeya ummadii shacabkii reer Hargeysa si fiican oo kala had lahayn bay dhalinyarada reer Hargeysa u gurmadeen habeenkii xalaha waxaan kamid ahaa dadkii ku dhaadhacay markii cisho laga baxayba dooxa ilaa iyo hadda sidii baan u taagnayn waxaan isu qaybinay dhowr iyo 10 tiin oo qaar ay kaga dhaceen halkii ay dadku kala tagay oo qaar kala dhaceen faraska oo qaar shiraacale oo qaar oo qaar ay kaga dhaceen markii xalay dadka oo soconayay aawadii ayay noo suuro gali wadeen wax badan aragno marka wax xagga hore u dhacayna waanu lahayn wax xagga dambe ku soo habsaamayna waanu lahayn calaa kulli xaal marxuumada meydkeeda waxa laga helay halkan loo yaqaano shirkadda Telesom ay ku leedahay macdarka weyn ama istaanka basaska loo raray maka dhinaceeda hawd oo dooxa waxa la helay abaar 6 iyo barkii subaxnimo abaar markii aanu cishaay tukanay waxaan leeyahay afwan salaada subax tukanay wax kala aragnay dadku u qardaysnaa la ka kacayba rag ugu horeeyay arkeen xilliga anagu waxaanu kamid ahayn dadka fugaa jaleela iyo inta oo barkad loo dhaxaysa ku jiray qofkii u horeeyay isku taaga oo in la yiraahdo Khadar Ismaaciil Musadiri ayaa ila soo hadlay iyo Cabdulaahi Maxamuud Daahir de marxuumada waa ducaynayna maanta ducaynaga mudan tahay waa bil Ramadaan waa maalin Jimcaha dad baa qaado kulli cadaab qabri male Ilaahay waxaanu ka baryeynaa eheladii iyo cailadii iyo awlaadii iyo saygeedii aabaheed iyo walaaladeed iyo dhammaan teemba inuu Ilaahay samriye iman naga siiyo qoyskaana Ilaahay cawl khayr qaba ugu bedelo marxuumadu imisa caruur ay ka tagtay hadii aad umada la wadaag marxuumadu waxay ka tagtay 5 caruura oo afarinan iyo inana oo qofka ugu yari sanad iyo 4 bilood jiray badanaana sanad kale waaweyn Ilaahay kuwana waxaan u rajaynaynaa inuu cawl khayr qaba siiyo waxaan doonayaa inaan halkan tacsiir tiiraayo aan uga diro adeerkay Khadar Kaahin Xaaji Aadan oo xalay toolal shil uu ku dhacay sida uu Maxamed Cabdulaahi baa dhamaystiray sidii ay wax u dhaceen iyo sidii ay hawshu ku dhamaatayba ciidanka demdemiska kale muddadii ay hawshu ku guda jirteen wax gacana ma ka hesheen maya waxay yimaadeen mar dambe oo hawl xeeriya fanaalba kala dhaceenoo daadkuna intii qaatay hawshiina ay dhamaatay ay qolada demdemisku meeshii yimaadeen maadaama xilli roobaad lagu jiro imika waxaan u diraynaa in laamaha ammaanku ay si guud uga shaqeeyaan meelaha daad mareenka ah sida wadooyinka iyo wixii kale ee dhibaatada Ilaahay subhanahu wa ta'ala ay naga bahayay oo kaysadaba inay heegan buuxa ahaadaan xilli roobaadka soo jeedinaya idin aad biyo aad mahadsantiin hadaatiin TV qaranka Allah u naxariistay marxuumada ayaa waxa ay saarnayd gaari uu waday saygeedu isla markaasina ay la saarnaayeen ilmo yar waxaana gaarigaasi laga badbaadiyay darawalkii gaarigaasi oo ah xumada saygeeda iyo sidoo kale ilmihii yaraa halka ay ku nafweyday marxuumad Najax Cabdi Cawiil marxuumada ayaa ifka kaga tagtay 5 caruura warbixintan waxa kala socotay telefishinka qaranka Soomaaliland waa Xasan Maxamed Muuse iyo Cawiil Cabdi Kaahin